kulanti wanaagsan saaxiibayaal jumco kariim meel walbood joogtaanba soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa dagaal 24 saacadood oo xidhiidha qaatay oo ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda durugsan ee gobolka bari oo waayihii dambaba ay ciidamadu ciribtirka kooxda khawaarijta Daacish ay ka wadeen dagaal shalay oo dhan socday xalay un habeenimo u istaagay maantana halkiisii kasii bilowday ayay ciidamada Puntland deegaano buurahaasi ka tirsan kula jiraan kooxda khawaarijta ee gobolkeedu dhacay ee buuraleyda gobolka bari ku dhumaalaysanaysa haddaba muuqaalkan waxaa idinkula wadaagi doonaa khasaaraha hordhaca ee dagaalkaasi laga soo warinayo iyo sidoo kaleeto deegaanka Janajiifta oo waayihii dambaba ciidamadu ay howlgallo ka wadeen isla markaana la isku mari la'aa oo saldhigyo waaweyn kooxda Daacish ay ku lahaayeen gabi ahaanba maanta ay ciidamadu la wareegeen iyo sidoo kaleeto saraakiil ka tirsan ciidanka Puntland ee howlgalkaasi ku jira oo miino maanta iyadana ay la kacday weliba mid ka mid ah saraakiisha ugu khatarsan ugu waxa weeye wax qabadka badan deegaanadana aad looga yaqaano Puntland aad looga yaqaano oo dhaawac uu soo gaadhay ayaa muuqaalka ku dul istaagaynaa waxaan dhanka kaleeto idinla wadaagi doonaa diyaaradii maalin ka hor lasoo bandhigay ee Puntland ay soo bandhigtay kuwa qumaatiga u kacay helicopterta oo maanta markii ugu horreysay ka degtay degmada Baledidin oo ka qayb qaadanaysa ururinta dhaawacyada iyo sidoo kaleeto qaadida saadadka iyo waxqabadka diyaaradaasi oo durba la dareemay ayaan iyadana dul istaagaynaa dhanka kaleeto waxaan dul istaagi doonaa khasaaraha guud inta sida hordhaca hadda ii soo gaadhay iyadana waa idinla wadaagayaa guud ahaan muuqaalka waxaan ku dulmari doonaa guulaha ciidanku ay gaadheen halka la kala marayo iyo saldhigyadan hadda la qabtay ee gacanta lagu dhigay deegaanka la yidhaahdo Tuur Masaale oo run ahaantii maalmihii dambaba kooxdu ay isku dayeen inay difaacdaan oo ciidanka gacantooda soo galay ayaan idinla wadaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka la igsaara fogeeya meel dheer ka tura idinkana insha allahu tacaala aynu ku bilownay dagaalkii shalay socday baa horta ilaa maanta socda oo xidhiidh ah maalin ka horna shalay mooyeen daraad hadda sidaa u garanayso waa saase yay saraakiisha ciidamada Puntland hadleen waxay dhaheen 24 saac ee soo socdo war baad naga helaysaan bay dhaheen warkii muxuu noqday marka shalay aroortiiba dagaal bay bilaabeen dagaalkii ay bilaabeen ee buurahaasi laga bilaabay ayaa ilaa maanta oo jamca oo laga yaabo inaad adigu si nadiif ah inta khamiis feereysatay aad jamca iskaga soo tukatay bay iyagu ciidanku ay ku jiraan jamca ma aysan soo tukanin masaajid ma aysan aadin hawl kale ma aysan qabsan oo iyaga danwa wax dangaarawa waxay ilaa iyo shalay iyo maanta jamca ay ciidanku buurahaasi uga dagaalamayaan danta guud ee bulshada reer Puntland ee deegaanada degan sidii cadowga looga dulqaadi lahaa guul weyn bay horta maanta gaadheen saraakiishu maalmo ka hor waa kay inoo sheegeen 6 kilomitir inay u jiraan deegaankan Tuur Masaale oo run ahaantii ah deegaan istiraatiiji ah deegaan buuraley ah deegaan markii la qiimeeyo la dhaho waaba jannaba la dhaho sababta deegaanka buuraleyda ku hareeraysan waxaa la yidhahdaa Janajiifta la yidhahdaa Janajiifta waa janno dhulku waa dhul aad u qurux badan weeye waa dhulka hadda aad aragtaan ee garabkayda socdo weeye dhulka ugu dambayn kooxdii ajaanibta ahayd ee cadowga ahayd ee Soomaalida ku soo duushay maanto jamca ayuu ilaahay makariyay ciidanka Puntland guul taariikhi ah oo ay gacanta ku dhigeen guul bay maanta gaadheen guul iyo gobonimo aan leenahay annaguna waa hambalyeynayna taasi waa midaas oo horta ilaa 3 saldhig oo deegaanka ku lahaayeen cagta la mariyay dhinaca kaleeto taliska guud ee ciribtirka kooxdaasi ee Puntland hogaaminaya war bay ka soo saareen 24 saac ugu dambeeyay guulaha la gaadhay waxay sheegeen inay deegaano ilaa iyo 6 saldhig gacanta lagaga dhigay 8 ku dhawaad oo baashi la yidhaahayay baashan qaraxyada ay ku soo xidhaan ee la yidhaahdo Trontana iyadana ay ciidamadu fashiliyeen guulo waaweyn oo taariikhina ay halkaasi ka gaadheen howlgalku waa socdaa rag waxaan arkayay le oo weliba uu ka mid yahay mid gudoomiye degma soo noqdo alaqaad ah aan wax kale oo dhaho garan maayo reer Puntland Google Map-kana la soo tusinaya Google Map-kana loo soo bandhigaya wax la qabtay waxbaan dilaa la leeyahay
ajaanib baan qabanaa laleeyahy war dadku way isku dhex jiraan guddoomiye ama ha ahaado ama taliye ha ahaado ama baashi nin shacab ha ahaado ama xildhibaan ha noqdee dadku ile wayba isku dhex jiraan oo nimankan dad baaba daba dhilif oo u shaqaynayaba waan yaabay markaan qoraalka arkay si kastaba howlgalku waa socdaa si habsami u socdaa loo joojin maayo qof walba oo kasoo hor imaada howlgalkaasi cid loo joojinaya ma jiro ciddii taageeraysa oo wanaagsanna soo dhawow baa laleeyahay oo iyadana hade way ku mahadsan tahay laakiin cid loo joojinaya hadal xumo iyo hagardaamadooda toona waana la iska qaban ciddii la arko oo la qaban karo ciddii afka meelaha ka qaylqaylidana oo afka nolana cidna uma baahana loona joojin maayo ciidanka puntland iyo xukuumadda iyo shacabkuba howlgalkaasi ay qaadeen run ahaantii waa howlgal si habsamila u socdo cid loo joojinaya ama loo baahayo kaleetoon allah ahayna ma jiro guulaysta ayaa lehay dhinaca kale kooxdan nabaddiidkee nafla caariga ee dhuumaalaysanaysa ee aan dagaal xataa waxba ku difaacan karin ee inay wax gaada mooyeen ama wax qarxisa mooyeen aan waxba qaban karin een taa kale lahayn miino ayay wadada ku aaseen ciidamadu marka iyagoo socda ayaa gaari u watay taliye xanaano ilaahay ha u boogadhaye ayay waxa weeye yay baashi taabsiiyeen dig gaarigii marka u watay bay la kacday isaga iyo saraakiil kaloo la socotay iyo ciidankii la socdayba oo halkaa gaari wada saarnaa miinadaas ayaa la kacday dhimasho lama soo sheegin dhaawac baa la sheegayaa oo isaga iyo taliyaal kaleba ay ku dhaawacmeen xogo kaloo hoose oona weli xaqiijinin ah waxbay messengerga ugu soo direen oo ay dhaheen taliye xanaanana waa geeriyooday laba taliyo kaleeto oo isaga la socoto ka hoosiisana waa geeriyoodeen bay dhaheen waa warar hoose ay iisoo direen marka ma rabay inaan bulshada isagoon la xaqiijinin aan la wadaago dhinaca puntland ee dowladda war kama soo bixin taliskana war kama soo bixin oo la xidhiidha dhimasho iyo waxa weeye wax la xidhiidha dhimasho aan dhahni xagga saraakiishu way sheegeen in waxa weye taliyaal iyo ciidan uu dhaawacmay oo waxa weye warar hoose ay soo tusiyeen oo la xaqiisan waxa weye xaqiiqo loo qaadan karo ayay saraakiishu sheegeen gaarigaa marka taliyuhu u watay bay miinadu la kacday waa dhaawac baa la yidhi isaga iyo raggii la socdayba waa dhaawac weliba isagu waa dhaawac fudud baa la yidhi waa sida warku ay sheegayaan diyaaradda maanta ka degtay baledidina waxaa la sheegay in dhaawacyadii raggaas iyo kuwii dagaalada ku dhaawacmay ilaa shalay ay diyaaraddu halkaa ka daadgurayso maanta ay qaaday oo diyaarad baa baledidin kasoo degtay waana markii ugu horreysay oo diyaarad noocaas oo kale baledidin ay ka degto waa diyaaradaha ka qayb qaadanaya howlgalkan ciribtirka kooxda khawaarijta ee daacish waa diyaaraddii maalin dhaweyd ay idiin soo bandhigaya helicopter tahay ee qumaatiga u kacaysay diyaaradahaas baa marka ka qayb qaadanaya oo dhaawacyadu ururinaya waxay ka dejinayaan garoonka boosaaso marka halkaas baa wixii caafimaadkooda gudaha looga qaban karana lagu daaweyni wixii aan gudaha waxa looga qaban karinna laga sii qaadi madaxweynihii baana meesha ku sugan iyo dowladdii dhanayd baa meesha ku sugan oo ku sugaysa maalin dhaweyd waxaan ogsoonayn in mid kamid a raggii kusoo dhaawacmay howlgalkaasi loo qaaday dalka dibaddiisa oo qalliin uu ku galay shalayna waxaa lasoo bandhigay isagoo fiican oo qalliinkii uu galayna lagu guulaystay marka wixii marka gudaha looga qaban karana waa laga qaban wixii aan gudaha waxba looga qaban karinna waa la qaadi horay baa laga qaadaya dowladdu marka way ka go-an tahay sidii howlgalkaasi loogu soo afjari lahaa kooxda khawaarijta ayaa dowladda puntland ka go-an cid walboo garab ka siin karta ama wax kala qaban kartana de way mahadsan tahay oo waa la soo dhaweynaya cid la diidaya ma jiro ciddii de kooxahaasi taageero oo garab u noqdana waa la iska qabanaya marka howlgalku marka waa socdaa shalay iyo maanta marka ciidamadu waxay gaadheen guul taariikhiya ayay run ahaantii gaadheen waxaan leenahay hambalyo ummadda soomaaliyeed ee dhammaan dal iyo dibadba ku dhaqan ee jecel midnimada iyo wadajirka iyo amniga kooxaha khawaarijtana kasoo horjeeda hambalyaan leenahay reer puntland waxaan leenahay waad cibaadaysateen horey usii socda iyadoo maanta haddana jamco ay tahay dagaalka aad qaadeenna sida aad ugu soo afjeerteen khawaarijtii nafla caariga ahayd ee kubanaanka kilomitr kasoo tagtay inay dhulkeena dhibaatayso o dadkeena dhibaatayso aad baad ugu mahadsantihiin sidaad waxa weeye aad iskaga kaashateene horay u socda ayaan leenahay horay u socda guul iyo gobonimo dhawadeel wixii kasoo kordho waynu eegi doonaa dagaalku waa socdaa xaaladda waxa weeye marba marka ka dambaysa puntland waxaad moodaa inay carsii qaadanayso wixii kasoo kordho halkan baan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla